Cortisol Cocktails waa isbeddel cusub oo lagu dhimayo walbahaarka, bal aynu eegno cilmiga ka dambeeya. Ma maqashay Cortisol Cocktail? Tani ma aha cabbeed bar laga dalbanayo, balse waa mid ka mid ah isbeddellada cusub ee caafimaad ee baraha bulshada lagu faafinayo. Kuwa taageera waxay sheegaan in cabitaankani oo laga sameeyo casiirka liinta, biyaha qumbaha iyo milix uu yareeyo heerarka cortisolka sare iyo waxa loo yaqaan adrenal fatigue. Arrintaas ayaa la sheegay in ay keento faa'iidooyin kala duwan sida walbahaar yar iyo tamar kordhay. Laakiin ma runbaa in Cortisol Cocktail uu sidaas sameeyo? Mise dhab ahaantii ma u baahannahay inaan hoos u dhigno heerarka cortisolka? Aan eegno caddaynta cilmiga. Cortisol waa maxay? Cortisol marar badan ayaa lagu soo bandhigaa in uu xun yahay, balse nolosheennu ma suurtogeli lahayn la'aantiis. Cortisol waa hormoon ay soo saaraan qanjirrada adrenalka, kuwaas oo sidoo kale soo daaya hormoono kale sida adrenaline, hormoonada jinsiga iyo aldosterone, oo dheellitira milixda jirka kuna saameeya dhiig-karka. Cortisol waxaa xakameeya maskaxda iyadoo ka jawaabaysa walbahaarka. Walbahaarka jireed, tusaale, dhaawac ama hurdo yari, iyo kan maskaxeed sida cadaadiska shaqada ama murugada waxay kiriyaan stress response oo loo yaqaan dagaal ama duul, fight or flight, taas oo kordhisa cortisol. Inkasta oo badanaa lagu tilmaamo hormoonka walbahaarka, cortisol wuxuu leeyahay shaqooyin kale oo muhiim ah, sida kordhinta sonkorta dhiiga si tamar loo helo, habaynta dheefshiidka iyo yaraynta caabuqa. Jirkaagu si joogto ah ayuu cortisol u sameeyaa, balse heerarkiisu way isbeddelaan iyadoo ku xidhan maalinta iyo habeenka. Wuxuu sare u kacaa waaberiga, ugu sarreeyaa subaxdii, hoos ayuu u dhacaa galabtii, wuxuuna ugu hooseeyaa habeenkii. Cortisol badan ayaa loo baahan yahay subaxdii si uu inaga toosiyo oo tamar inoo sii daayo, sidoo kale xaaladaha degdega ah si feejignaan loo yeesho. Dhanka kale, habeenkii heerkiisu hooseeya ayaa muhiim u ah hurdo wanaagsan. Waxaa jira faham qaldan oo ku saabsan cortisol sare iyo mid hoose. Calaamado badan oo dadka u aanaystaan cortisol sare, sida cayil iyo daal, waxay dhab ahaantii xiriir la leeyihiin cortisol hoose. Xanuunka daalka joogtada ah, chronic fatigue syndrome, badanaa waxaa lala xiriiriyaa cortisol hoose. Walbahaarka joogtada ah mararka qaar wuxuu kordhiyaa cortisol, balse sidoo kale wuxuu sababi karaa inuu hoos u dhaco. Waxaa xusid mudan in adrenal fatigue aanu ahayn xaalad caafimaad oo si rasmi ah loo aqoonsan yahay, balse loola jeedo qanjirrada adrenal oo soo saara cortisol yar. Sidaa darteed, ma makeense samaynayso in la yidhaahdo Cortisol Cocktail wuxuu isla mar ahaantaana daweyn karaa cortisol sare iyo kan hoose. Maxaa ku jira Cortisol Cocktail? Cuntooyinka la isticmaalo way kala duwanaan karaan, balse badanaa waxaa ku jira nus koob casiirka liinta, nus koob biyo qumbaha, ku dhowaad rubuc qaado milix ah, mararka qaarna budo potassium ama magnesium ah. Faa'iidooyinka caafimaad ee la sheegayo waxay la xiriiraan fitamiin ee casiirka liinta, potassium ee biyaha qumbaha, magnesiumka la daro iyo sodiumka milixda. Fitamiin muhiim u ah shaqada qanjirrada adrenal iyo dheelitirka cortisol. Potassium lagama maarmaan u ah shaqada unugyada iyo garaaca wadnaha joogtada ah. Inkasta oo uusan si toos ah u saamayn cortisol, wuxuu gacan ka geysan karaa yaraynta saamaynta walbahaarka sida dhiig-karka. Magnesium muhiim u ah soo saarista tamarta, waxaana muhiim u ah dadka walbahaarka badan. Cuntooyin badan ayaa ka kooban magnesium sida khudaarta cagaaran, lawska, badarka iyo hilibka. Sodium milix, sheegashada in milixdu wanaajiso qanjirrada adrenal ama yarayso cortisol waa qalad. Xaddi badan oo milix ah wuxuu kordhiyaa khatarta cudurrada dabadheeraada, sidoo kale wuxuu kordhiyaa cortisol. Halista ka imaan karta sonkorta iyo milixda badan. Inkasta oo cabitaanku leeyahay fitamiino iyo macdano muhiim ah, haddana ma aha mid wax weyn ka beddela heerarka cortisol. Waxa kale oo ku badan sonkor iyo milix. Hal koob wuxuu leeyahay ku dhowaad 1 lix sonkor, taas oo ah 3 meelood meel xadka maalinlaha lagu taliyey. Taasi waxay halis ku tahay dadka sonkorowga qaba. Milixda ku jirta qaado waa rubuc xadka maalinlaha lagu taliyey. Milix badan waa caadi dadka badankood, waxayna khatar ku tahay dadka dhiig-karka qaba. Potassium badan oo ku jira cabitaankan sidoo kale waa halis u ah dadka qaba cudurrada wadnaha, sonkorowga iyo cudurrada kalyaha. Sidee loo ilaalin karaa cortisol caafimaad leh? Habka ugu fiican waa yaraynta walbahaarka. Daraasado badan ayaa muujiyey in mindfulness, meditation iyo relaxation ay yihiin kuwa ugu fiican ee hoos u dhiga cortisol sare. Waxaa jira 5 nooc oo hawlo ah oo caawiya walbahaarka: jimicsi, hawlo maskaxeed ama hal abuur, la sheekaysiga dadka kale, hawlo nafta lagu dejiyo, tusaale neefsashada qoto dheer ama meditation. Inaad maalin walba u hibsato mid ka mid ah hawlahan waxay leedahay faa'iido weyn. Xitaa nasashooyin gaaban sida neefsasho qoto dheer, la sheekaysiga qof saaxiib ah, kala bixid ama xalinta hal xabad buus leh waxay caawin karaan. Marka la soo koobo, inkastoo Cortisol Cocktail uu leeyahay nafaqooyin qaar, faa'iidooyinka la sheegayo waa kuwa laga shakiyo. Halkii aad cabitaankaas ka isticmaali lahayd, cunida liin iyo hoogaa lows ah ayaa ku siin kara nafaqooyin la mid ah, adigoon la kulmin halista sonkor iyo milix badan. Qoraaga Teresa Larkin, Associate Professor of Medical Science, University of Wollongong.
Qormadan waxaa laga soo qaaday te conversation iyadoo lagu daabacay shatiga Creative Commons.